taariikhda dadkay bartaa wixii daboolan ingiriiska dalalkii uu gumaystay shirkado ganacsi uu leeyahay ayuu ugu soo dhuuntay tusaale East India Company shirkad magaceeda ahaa oo kadib loo yaqaanay British East India Company ayaa heshiis maalgashi la gashay boqortooyadii Mughal shirkadan ayaa waxa isu bedeshay shirkad military markii dambe qarnigan 20aad in la isgumaysto way adag tahay heshiiska Imaaraadka Ethiopia iyo Somaliland ama gobolada waqooyi ee Soomaaliya wuxuu ku dambeyn doonaa fashil labadan arrimood daraadeed dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laguma xadgudbi karo lamana qaybin karo sida dastuurka dalku dhigayo xuduudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay kala yihiin waqooyi gacanka cadmeed waqooyi galbeed Djibouti galbeed Ethiopia koonfur galbeed Kenya bari badweynta Hindiya heshiis dawladda federaalka aysan ogoleen oo si sharci ah uga shaqeyn kara ma jiro gudaha xuduudaha dalka Soomaaliya waxay dacwo ka dhanahay Imaaraadka u gudbisay UN-ka Arab League iyo ururka Islaamka saddexdan urur Soomaaliya iyo Imaaraadka way ka wada tirsan yihiin shuruucdoodan waxa kamid ah in wadan uusan wadan kale ku xadgudbi karin iyadoo dooda Soomaaliya ee in madax banaanideeda lagu xadgudbay loo heelin doono qodobka labaad ee burburinaya heshiiskan waa DP World iyo taariikhdeeda madow ay ku curyaamisay dekada hore gacanta ugu galay dalalka Yemen iyo Djibouti ayaa laga eriyay 2006 Mareykanka ayaa laga diiday kadib labada aqal ee sharci dejinta markii ay laaleen heshiis ay shirkado la gashay 2008 shirkadda DP World waxa heshiis 30 sano ah ay ku maamulayso dekada cadan la gaartay dalka Yemen 2008 dekada cadan waxa ka degay 500,000 oo container si inta looga badiyo oo loo balaariyo howsha dekada ayaa lagu wareejiyay DP World oo sheegtay in 220 milyan oo maalgelin ay ku sameyn doonto dekada cadan 900,000 oo container inay gaarsiinayso sanadkiiba ayaa heshiiska kamid ahaa balse taasi wax ka duwan ayaa dhacay 2011 dekada cadan hoos ayay u dhacday 140,000 oo container ayaa sanadkaasi degay koor inta aan DP World dekada lagu wareejin waxa degi jiray 500,000 oo container taasi waxa dheeraa shaqaalihii dekada oo haaf la dhimay qalabkii dekada oo aan la dayactirin 2012 dawladda Yemen ayaa DP World eriday kadib kacdoon shacab oo looga soo horjeeday Imaaraadka iyo shirkadooda curyaaminta ay ku hayeen cadan si Dubai aan loola tartamin haddaba dekada Berbera waxa ka shaqeeya 2,500 qof oo Soomaali ah DP World ma fulin doonto ballanqaadyada horumarineed ee dekada Berbera xoogsatada Soomaaliyeedna kacdoon bay sameyn doonaan kadib shaqo la'aan ku timaada taasoo sababaysa in la eriyo shirkadan Ethiopia way ku hungoobi doontaa damaceeda ah inay baad ka qaado dekada Berbera qarnigan 20aad